هنا صح استمدوني. السلام عليكم واندي السلامي دمانتين بأنيقا أو أشواقة بدنا هلكن كما سoo galo waxaan ka soo galaa YouTube ka soo galaa soo dhawaada khiyaarta sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan leh soo dhawaada kam afuran ku soo dhawaada waan idin salaamaya akhbaarta khiyaarta sharafta leh iyo qiimaha iyo qaayaha badan leh aad ayaan idin salaamaya maanta waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo qiso aniga igu dhacday runtii يعني qof waliba waxba adduunka soo maraa laakiin Soomaalidu waxay jeceshahay inay wax qariyaan oo wax duubaan sida darteed baan mar walba waxaan uga hadlaa kufsiga iyo maaragtay gabdhaha ilmaha wacalada atuura oo meelaha dhiga يعني asbaabaha ay ugu dhacdo yacalshan qisooyin markay qiso ku dhacdo aanay u garanay sida ay u farsameyn leed ama dadkeeda ugu sheegi leed waxa intaanay aanay tagin ayaa laga hortagaa si looga hortagi lahaa saas darteed uga hadlaa soo marar badan ayaan isku dayay inaan la qaybsado dad kale oo aan la wadaago soo way suurtagali weeday marka anigu waxaan go'aan ku qaatay inaan anigu furto YouTube anigu aan leeyahay oo aan anigu qisooyinkay uga hadlo oo aan anigu uga sheekeeyo aniga qisooyinkay igu dhacay aan dadka la wadaago saa idin sheegana anigu ma jecel inaan wax qariyo oo qof wax qaris iyo wax saas taqaan mihi anoo Soomaaliya joogay man qarin waan sheegay calashaan man qarin dadkayga ehelkayga familykayga iyo waalidkayga cidna kamaan qarin qofna malaa'ik maaha qof walba dib uu ku dhacaa qof farxad qof walba wax waa ku dhacaan wax dhibaya wax wanaag iyo wax fiican way ku dhacaan laakiin waxa fiican wax walba markay cusbaayeen waa sheergaray hadda iyadoo ay waqti badan ka soo tagtay ay waqti badan laga soo wareegay inaan la sheergaray ayaan jeclaaday walaalahayga Soomaaliyeed waayo wax walba marka la sheego ma taqaanaa jiilka ay jiilka dambe oo soo socda ama dadku wax uga faa'iidaan ama jiilka dambe soo socda sida aanay ugu dhicin ama looga hortagi kara sidii hortag looga sameyn kara ama anigu sida aan sameeyo kale waxa dhici karta inay gabdho badan tusaale u noqoto oo ay tusaale ka qaataan oo ay maybe sida aniga aan ku dhaqaaqay ay ku dhaqaaqaan iyadoo ay family iska hortaagi karo iyadoo ay Soomaalidu qabiil u shaqeysto qabiil iska hortaagi doono insha Allah inta aan barnaamijkayga aanan ka hor sheekadayda qisadayda kufsiga iyo jacaylka ku saabsanayd aniga iyo wiil Soomaaliyeedna soo kala dhex martay waagi aan ahaa 16 jir yani wadamada qurbaa 16 jir aad bay uga yar tahay intaan aan ku bilaabin ka hor waxaan ugu dhufanayaa hees yar ayaa noo daaraya ila socod wanaagsan waan idin soo dhaweynaya
soomaalida qaar waxay soo qorayaan qaar baa waxay u yaqaanaan kufsiga iyo raaxada waa kala gooni yacni waxaa markaan dhaho aniga matalan facebook aan dhaho sharmuuto waxaan u aqaanaa naag raaxaysta calashaan kufsiga waa qof la xoogay oo qasab lagu kufsaday oo waxaan raalli ka ahayn lagu sameeyey qofna waxawaaye dhilana waxawaaye naag raaxaysatay oo raalli ka ahayd ninka ay wada seexanayeen ama wareefa علشان يستعمالين عشان قف رالي كهذا وحدة ديبتي تصل ده ناق راح لكن قف كفسي وح أصلا كفسي وحواي أم حوجتان وقف الحوجي إن صقع عن رالي كهن أما هوب هلا أديك صدا أما هلا حوج بدناده أما قاب كله هلا أديك صدا صو مركا أنا كقصة إني استيسيانا أنا كقصة إذا أيام بلابي دونا إن شاء الله markii aan ahaa 13 jir markaan ahaa waa ogtihiin Soomaaliya gabdhaha markay 13 jiraan calashaan markaasay soo korayaan calashaan waxa way naaska u soo baxay gabar walba waxay ku xidhan tahay marka ay family-geeda say u koriyo ama guriga ay ku nooshahay waxa ay cunto ama maaragtay yaani jirkeeda iyo hormoonkeeda sidoo u kala socdo bay ku xidhan tahay soo markii aan 13 ahaa waxaa jirtay markaan dharka soo tolanayo calashaan aan dhar u baahanahay matalan baati oo kale cambuur oo kale gabar yar oo 13 jir oo markaa naas ku soo baxayo oo qurux badan oo beautiful ah nin walba waa ogtiin wiilasha dhan banaanka u taagan yihiin shaarica u taagan yihiin mid walba wuxuu isku dayayaa inuu shukaansado inuu maaragtay la sheekaysto inuu xogxogto ayuu isku dayayaa waxa dhacday aniga waxaan geysan jiray dharka ku soo tolan jiray wiil habarartay dhashay aniga habarartay ruma maaha laakiin hooyaday inaadeerteed wiil ay dhashay ayaa dharka u geysan jiray sababta ugu geysan jireen waxay ahayd maadaama Soomaalidu calashaan waxa la dhahaa oodba ooda ka xigta ayaa dhaxanta ka cirsa maadaama aan calashaan isdhahay wiilkan habararta ayaa dhashay oo maadaama hooyaday inaadeerteed ay dhashay aan isdhahay yani aan xigsanaya calashaan xigtiima ahaan aan xigsanayaan family ahaan xigsanayay oo aanan wax cabsi iyo waxba ka qabin dharka ayaa u geysan jiray dharka ayuu ii soo tolo jiray aniga gabar kale oo aniga aan habar markaas u ahaa laakiin iga weyneed dharka sidaan dharka ugu tolayay dhar tolitaan ee noqotay dharka ugu tolayay waxay noqotay sheeko inay sheekada ay isku bedesho shukaansi oo wiilkii shukaansado ani markaa shukaansi ma aqoonin calashaan isaga sheekada shukaansi isku bedeshay shukaansiga markay isku bedeshay waxa dhacday waan sheekaysan jirnay ilaa iyo marka aan 14 ka soo noqonayay 15 ilaa inta ka soo noqonayay 16 ilaa inta ka soo noqonayay way socotay sheekaysanay marka sheekaysan jirnay markii waxa isku bedeshay jacayl
waxay isku bedeshay guur in maaragtay guur aan ku heshiino inuu faamilkeyga iga doonto in maaragtay cidda loo sheego inay gabdhaha barrahe dhaleen oo dhan calashaan gabdhaha mar walba gabdhaha waa isku saan mar walba dadka ma aqaan dadka inay ka sameeyeen dad baa jira family wax ka qarsan laakiin mar walba gabdhaha abtigee dhalay ama gabdhaha habarrahe dhaleen waa sheekada waa la wadaag jiray saas wax walba waa ogaa inuu wiilkaas la sheekaysto inuu wiilkaas sheekaysano oo wax walba calashaan wax walba oo information see calashaan sheel isku shukaansadaa saanu dhahay gabar habarta dhashay au sheeg jiray saanu dhahay maxaa ugu jawaabaa calashaan ma fahamtay qofka markuu yar yahay shukaansi ma yaqaano runtii waa inuu maaragtay uu helaa qof ka caawiyo sida qofka waxa ugu jawaab waxa u sheegi lahayd iyo maaragtay waxa qofka aanu qaladka aanu kugu sameyn karin iyo sida calashaan practice camal calashaan practice u sameyn jiray gabadh habarta dhashay baan weydiin jiray ani mar walbaba ma fahamtay aan ku kalsoonaa oo aan aad u jeclaa soo marka family-geena inta gabdhaha habarta dhaleen abtigee dhalay aad baa kuwaasaan aad u jeclaa waan u sheegi jiray way ogaayeen inaan isla sheekaysan jirnay qof kastana wuu ogaa waqti badan ayay nagu qaadatay calashaan waxaa wiilkaas markaa waxaa isku sheekaysananay isagoo ii sheegaya inaa aniga habartii dhashay inaan calashaan xumaato kugu sameyn karin inaan xumaato kuu quurin inaan maaragtay inaan rabo inaan mustaqbal kula wareego inaan noqoto soojadeedii calashaan intaa kasoo korayso xoogaa maaragtay kasoo korayso xoogaa kasoo weynaanaysid oo maaragtay caqligaaga xoogaa inaan sii shukaansano oo marmar waxaaba dhici jirtayba horta waxaa la dhahay Soomaalidu runtii sheegaa rabbi ma cadaabo marmar waxaa dhici jirtay anagoo ishukaansanayna yaa harqaanka uu tolaayo inay waqti dambe ay noqoto oo gurigii laga soo xirto yaa oo la dhaho maaragtay calashaan waqtigan calashaan guriga la soo xiro dadka markay dadka kale waa yeelka way seexanayaan maahano goor hore seexanayaanba ay noqoto oo aanan wax dhibaato kala kulmi jirin calashaan qofka markaad kalsooni uu ku siiyo kalsooni buuxda aad baad u aaminaysaa runtii calashaan wax dhibaato aanan kala kulmi jirin oo maaragtay wax dhibaato aanan kala kulmi jirin oo maaragtay uu soo kaxayn jiray guriga intuu derbiga ka soo bodo albaabka iga furi jiray oo wax dhibaato kala kulmi jirin wax maata kama kulmi jirin soo waqti badan ee sanado badan qaadatay ay arintii soo socotay sheekadayadii oo xitaa asaga wiilashii ay isku family ahaayeen ama maaragtay ehelkiisa ahayd ama abtiyadii dhaleen ama adeeradii dhaleen ay ogaayeen xitaa heer la gaaro la isku kaayo ogaado inaan shukaansanayno dadka dhan ogaadeen soo waxay saaxiib ahaayeen marka wiil aniga habartay hooyaday la dhalatay ay dhashay oo aniga ay aayaday dhashay habartay hooyaday la dhalatay ay dhashay ayay saaxiib lilaahi ahaayeen oo ay wada ciyaari jireen kubadda calashaan kubadda dhalinyarta Soomaaliya kubadda ay dadka kubadda ciyaari jireen wiilkana aniga runtii markaas uu iga weynaa marka aniga 13 jiray meeba isaga 25 meelahaas u jiray marka waxa dhacday wiilkii calashaan meeshaas aniga runtii calashaan waxa u qaatay daacad sembri maarta qofku markuu sembri mataqaana qofka markay dhalinyarta aad tahay ma taqaanid qofkan been buu sheegayaa qofkan waa beenaale iyo waxaas ma taqaanid qofku just waxaad dhageysanaysaa waxa afkiisa ka soo baxaya ama qofku waxa uu kuu sheegayo oo maaragtay oo afkiisa kaaga sheegay ayaad run u qaadanaysaa yani waad rumaysanaysaa ma ogaanaysid hadda ayuun baan ogaaday marka qofka oo aad qof weyn noqoto aad korto maaragtay 22 gaarto ayaad ogaanaysaa in dad khiyaano jirin dad daacad inay jirin waxaas laakiin markaas adduunka ku cusub waxa lagu sheegay run ayaad u qaadanaysaa wax been ma u maleynaysid runtiina Soomaaliya badanaa gabdhaha waxa laga faa'iideystaa marka ay yar yihiin 15 16 17 markaas waxba ma ogo dadka waaweyn dad bay soo wacay akhi iga dhaaf soo wacitaanka ma oga dadka waaweyn lama sheekaystaan waxba ma oga calashaan adduunku waa u cusub yahay adduunyada ma u kala furfurmin wax ma kala fahansana just qofkaas wuxuu kuu sheegay run oo qaadanaysaa run ayaa aniga u qaadan jiray ina wiilkaas jacayl isla wadnay inay sheekadu ay jacayl ahayd ina mustaqbalka aan isla wadaagi doono ina sawjadiisa noqon doono calashaan waxaas dhan aniga run ayaa u qaadanay soo waxa dhacday aniga waxaan gobolkii uu markaa isaga uu joogay aniga waa ka soo tagay waxaan imaaday magaalada Hargeysa markaa imaad waxaan ugu imaaday islaan ayeeday oo Sacuudiga ka imaatay oo markaa guri ka gadatay Hargeysa waxa dhacay markaas aniga aan soo booqday boqosho ugu imaaday marka meeshii anigoo jooga ayaa habeen kamid ah calashaan meel kasta aan joogo meel kasta aniga aan tagayo
telefoonka xaafadaas ku jira markaas xaafadaha markaas waqtigaas waxa la isticmaali jiray aniga telefoon line hadda aniga telefoonkayga aan qaban waayo telefoonka line-ka lacalla telefoonka line-ka iga soo wac maca ayadina waa u sheeg waxaan dhahay ayeeyoy wiilkaasaa sheekaysanaa habartay dhashay waa isjecelahay waa kaasaa calashaan ilaa anu haddii maartay magaaladan joogo imad inaan kulanaa rabna intee ku maqnada la dhaha ma rabo inaan been sheega aniga runtaa mar walba sheegi jiray meeshaa ku maqnay waalidkeyga mar walba waa la socodsiin jiray so waxaan dhahay saanta iyada u sheeg waxaan dhahay hadduu wiilkaas ku soo waco cabdisamad baa la dhahaa hadduu ku dhaho iigu dhiib shaaq waa inaad iigu dhibta ii wacda ama tirada kusoo celi laylankii lambarka iyada sariirta ku jiifto agteedu yaala laylankii la soo wacay habeennimada kamid ah assalaamu calaykum aniga magaca cabdisamad baa la dhahaa ashwaaq ayaan u baahanahay ayada waa ii wacday kaal wiilkaa ku doonaya waa la hadlay haye waan maxaan joogaa hargeysaan joogaa seminaar baan u imi aniga iyo wiilkii habarartii dhashay aniga habarartii ruma hooyada la dhalatay ay dhashay oo ayaa isla soconaa marka waxaan rabnaa inaan ku arko inaad noo timaado maqaaxe ayaanu fadhinaa cunto ka cunaynaa waa la bistay runtii anigoo faraxsan aniga oo marna calashaan ku faraxsan dee jacaylkayga inuu ii imaaday oo aanu kulmayno ku faraxsan aan arrimaha iyaga mustaqbalka ka wada hadlayno ku faraxsan wiilka kale habartay dhashay calashaan qof faamiligeeda u imaaday wiilkana habartay dhashay yani qof faamiligeeda u imaaday calashaan ku faraxsan oo marka aniga aan ka garanay si fiican uga garanayo labadaa qof ay ahaayeen aan magaalada si fiican uga garanayo aan magaalada ku cusbaa si fiican dad badan aanan ka aqoonin marka iyada iyo maaragtay waxa oo family mooyaan waxa dhacday inaan labisto aan iyada u sheego adeerkay oo markaa ka imaaday afgooye oo markaa iyada inuu soo booqdo u imaaday oo markaa la joogay isagana khayr allaha siiye oo markaa tabliiq intuu raacay tabliiqii ka imaaday oo habeenkaas isna guriga uu joogo oo sheegay adeer waxaan dhahay wiil aan sheekaysanayno oo habartay dhashay iyo wiil kale habartii ruma dhashay يعني لذا wiilba habartii dhashay iyo habartii ruma dhashay iyo habartii hooyadayna adeertay dhashay ayaan rabaa inaan la kulmo wiilkaas aan soo shukaasanana hadee ogaada wiilkaas ayaan aaday waa kaas waa ogtihiin la socda albaabka dhaha laga furaya ma ahayn calashaan gabdhaha sideedaba intay dharka iska gashtaan ya iska baxaan waalidka dadka ka qariyaan calashaan ka qariyaan wax walba waxa fiican inay ka baradinto calashaan waalidkaaga meesha aad hadhow wax kugu soo dhacaan si aad ugu sheegi karto waalidkaaga wixii kugu dhacay calashaan hadaa qarsato waxa qarsato way ku qarsadaan calashaan waxaan ka wadaa markay gabdhaha Soomaalida ay uur yeeshaan markii hore meeshay waalidkooda aadayeen ma ogeyn meeshay waalidkooda u socdeen ma ogeyn hadhow waxay u sheegaan ma sheegi kara dar waxa dhahay waxay ku marmarsiiyaan gabar waxaan raacnay saaxiibadaya ka bacdina waxa dhacday saaxiibada markaan raacday waxa dhacday inaan inta la xoogo uur loo yeelo hadhow ay sheegi kar waa inay dhahan calashaan waxa lagu ogaa saaxiibadeed inay aadin ma ogtahay saaxiibada inay aadta lagu ogaa saaxiibada inay aadin waxa dhacday markaa waan baxay waan labistay waa bacweynaha dhag la isku siiyay hargeysa bacweynaha laga xisaya ya hargeysa bacweynaha laga xisaya bacweynaha dhag isku siiyay barafoonka makeup-ka ya dhac kaba dheer dhaqum alla dhawcil khayr ma leh wallahi dhawcil khayr ma leh ma fiican calashaan ma ka fikiraysid wixii calashaan horta ma ogaan kartid calashaan qofka calooshiisa iyo maaragtay niyadiisa kuma jirtid ma ogtahay qofkan waxa afka kaaga sheegaya ayaan bad u sheegaysaa maxaa soo socda marka maxaa dhici doona dad badan baa soo qoray maad ooynaysaa horta markii qisada igu dhacday maan ooyin aniga qof adag baan ahay laakiin calashaan waxaan soo xasuustay taariikha calashaan ay waqti badan ka soo wareegtay qofku maaragtay bini'aadamka taariikh ayaan soo xasuustay ay waqti badan ka soo wareegtay iyo maaragtay sidii anigu aan ku fikirayay sidii ay noqotay iyo sidii xaaladii isku gadisay
ayaan calashaan soo xasuustay laakiin markii aniga qisada igu dhacdayba marnaba maan ooyin weligay qisa igu dhacdayna maan ooyin waxyaaba intaa ka xanuun badan ayaa igu dhacay manaan ooyin waayo sababtay tahay mar walba waxay igu dhacaan waxaan dhihi jiray tawakaltu cala allah wabilaahi wakaliyi waxaan yaa kuu keenay maadaa isku keentay ilaahay baa kuu keenay sooma waxaan dhihi jiray tawakaltu cala allah waxaan ahaan jiray qof diinta aada ugu fiican xagga diinta aada ugu fiican salaad badan tukata duca badan samaysa ilaahay ku xidhan soo weligeeba qisooyin intan ka daran hadda aan ka hadlay waxaan kufsi maxay tahay kufsi waxa maaha moogtahay kufsi wax weyn maaha calashaan dhaawac wuu kuu geenay laakiin wax ka daran oo ka adag ayaa igu dhacay markaa calashaan weligay ma ka ooyin waayo waxaan dhihi jiray subxaan tawakaltu cala allah ilaahay calashaan ilaahay haddii kheyr malaha calashaan shar igu soo socda ilaahay igaga celiyey maybe waa dhici kartaa calashaan ma fahanti waxa kugu dhacaya adiga maad keensanaysid laakiin maalinta aad xab iyo biyo tahay ayaa wax walba kugu dhacaya ay kugu dhacaan ama waxay kugu dhacaan adiga qaladaad aad samaysay oo aad ama ka fiirsan weyda ama qalad waxuun yacni sibay kugu ama meel bay hoosaas waa lagu hoosaasinaya dadka way ku hasaasay marka nimanka Soomaaliya gabdhaha way hoosaasiyaan mataqaana calashaan waxay kuu dhigayaan dabin in lagu dhigo ayaad ugu dhacaysa ay dhibku ugu dhici kara inta dabin lagu dhigo ama jacayl lagugu abuuro ama been lagu sheego ama maaragtay dabin lagu dhigo ayaa kugu dhacaysa marka maxaa dhacday habeenkii shukaansigii waan baxay wiilkii waan kulanay maqaaxidii sheegay way noqotay maqaaxidii calashaan maqaaxidii markaan tagna wuxuu dhahay wuu baxay hadda anaga calashaan wuxuu iga hor imaaday calashaan meel dhexe aniga hargeysaha qofkii arkay يعني حافظها وكلا لبا دامود واي لبا دامود علشان وكلا قيب سنتي دان تاس مركا اسوغا دانتان كلو جوغي قيبتا كلو جوغا انا قيب حق ماركتي ايربوت كحigta ماركتي حق ايربوت كحigtaan joogay isagana xaggan meesha hayad xara awri meelahaas la dhahay uu joogay marka way kala fogtahay علشان runtii aniga bas baan soo qaatay xaafadu joogana maan garanayn maqaaxidana maan garanayn laakiin wuxuu iga hormaaday meel dhexa ah oo dhexdhex ayaan ku ballanay calashaan sidoo ii wado oo aan isku aragno aniga wiilkaan sheekaysano dad shukaansi ka dhaxeeya jacayl ka dhaxeeya horena waa idin sheegay meeshii magaaladii aan soo wada joogi jirnay inuu harqaan toli jiray aan harqaanka soo aan cidi la joogin aan waqtiyo badan aan isla shukaansanay ay waqtiyo badan habeenada min ugu qaadatay oo aan weligii wax dhibaato ii geysan ama wax xumaata ah kala kulmay wax wanaag iyo walaal macaan iyo maxay tahay jacaylkayga iyo qalbigayga iyo maaragtay jacayl iyo muxubbo iyo kalgacal iyo walaaltinimo iyo maaragtay mustaqbal qof ka sheekeynay weligay xumaan kala ma kulmin mana ka filanaynin calashaan waxaan ka filanaya may ahayn waxa dhacday uu soo wada waxa aawayaan dhahay marka xamsi aawe xamsi wuxuu dhahay xaafadu jooga xaafada kaas ku soo tagay aniga adeerkaya marka xamsi xaafadu jooga soo bax maxaa asaan qofa istaqaaneen ma ka cabsanaysid cabsina wax maskaxdaada ma soo galayso ma ku soo dhacayso calashaan qofa habeemo badan soo sheekaysateen oo guri maaragtay ku soo sheekaysteen oo banaanka samtay yani waqti badan soo ma ka cabsanaysid waxa dhacday marka gurigii baa imaaday qolbu fadhiisiyay cabitaan buu ii keenay aawayaan dhahay qolka uu jooga wariya xamsi guriga cidiba ma joogtaba guriga cidiba ma joogto ila show anoo wuxuu ii soo degay wuxuu film buu ii soo degay film aniga ii soo degay waayani ma ogi daacad baa iska calashaan guriga cidiba ma joogtaba guri waa guri cid la ah waan cidina joogin ma fahanti faraam I don't know cidu faraak soo qaatay xamsi aniga qolka iska fadhiistaan oo iska faraxsan oo isdhahayo calashaan walaalka kalena waa la kulmaysaa saan waay qolka iska fadhiyaa cabitaankayga iska cabay xamsi maxay tahay waa hadda waa baxay qof wuxuu iska dhigay sidii qof oo dadka guriga joogaan la hadlaay caashay xamsi aawe banaanku u baxay dhahday anana waxaasoo dhanba ma igelin dareenkaas iyo shakigaas iyo murugadaas iyo waxaasoo dhan ma igelin calashaan shakigaas ma gelin wuu soo laabtay qolkuu soo galay qolkii albaabka u xiray shaki ma igelin agtii soo fadhiistay maxaa dhacay marka albaabka xiritaanka bacdi dagaal iyo kufsi ayaa meeshii ka dhacay kufsigii laakiin meesha waxa ka dhacay kufsi iyo dagaal ayaa ka dhacay isaga kaligiinu ahaa ha u malaynina calashaan qof kale la socday kaligiisu ahaa wiilka habartii dhashayna kale wuu la socday laakiin isaga sheekadan lama ogeyn waayo habarartay hooyada la dhalatay ayaa kaa kala dhashay habarartay hooyada la dhalatay ayaa dhashay marka sheekadan filimkan muu ogeyn way isla socdeen seminar bay ugu madasna xaafad kale ku degay isna xaafad kale ku degay isma ogeyn meesha maxaa ka dhacay wiilkii aniga inuu kufsado
guriga cid loo ahaa oo aan qayliyo cid soo baxda ma jirin guriga cid loo waaye cid ma joogto maxay tiishay dagaal qofka marka la kufsado maxaa haddaba ku dhacaya يعني qofka markuu isagu isdiibo iyo marka uu qofka oo la kufsado waxa imanaya qofka marka la kufsado in qofka calaamado uu ku dhaco ama inaa xagtin qofkii ku dhacdo qofkii kale inaad xagato inaad maaragtay qaniinto ilaano waxaad rabtaa inaad iska celiso qofkan inaad qofkan iska celiso rabtaa inaad qofkii qaniinto aad ninkii qaniinto ama xagato isagii uu ku qaniino ama ku dhirbaaxo ama feer kugu dhifto ama dharkii uu ka jeexo marka aniga bacweyn waxaan dharka waa iga jeexmaday xagtima ay soo gaadhay jugag baa ay soo gaadhay meeshan lugaha ayuu markaan aan iska celiyay intii tamarteeda iska celiyay lugaha ayuu wuxuu igala dhacay feer nina waa garanaysaa mogtay feer markuu kala dhaco iyo tantooma haddaad taqaanaa calashaan xoog calashaan meel walba waa imudoobaatay lugaha dhaway mudobaadeen meesha kufsi baa dhacay waan soo baxay gurigii baan imi anigoo iska oynaya oo maaragtay calashaan mana ooyna calashaan laakiin anigoo murugaysan laakiin maxaan go-aan ku qaatay marka haddaba maxaan go-aan waxa aan rabaa inay gabdhaha Soomaaliyeed ka faa'iideystaan maxay tahay maxaan go-aan ku qaatay ayadii way ogayd inaan nin soo shukaansanayo oo aan ninka wada shukaansano aan isjecelahay waan adeerkeena waan u sheegay meeshaan aadanay waa la ogaa maxaan go-aan ku qaatay waxaan is iri haddaad ashwaaqay aamusto waan awoodi karay inaan aamuso dharkayga Soomaaliyeed waa kuwa markay wadankii joogta dhar waaweyn baad iska xidhantay cidana jirkaaga ma arkaysi waxa kugu dhacay jabkaaga waad qarsan kartaa mogtahay waxaan is iri haddii aad aamusto oo aad qarsato maadaaba waxaan ka xumaaday maadaaba uu qofkan ku khiyaamay maadaaba aydan isjeclaydeen maadaaba aa waqti badan calashaan waxa ku dhacay ma shaydaanba isaga laftirkiisa I don't know waxa ku dhacay calashaan qofkii aan ku ogaa ma noqon waxa ku dhacay shaydaan ma ka batay miyuu calashaan kale horta shirku uu soo degay calashaan wuxuu soo go'aansaday oo inuu ugu sameeyo habeenkaas uu ugu soo talagalay waayo wuxuu ugu talagalay calashaan magaaladaas isaga muu deganay wuu imaatay anigana saasoo kale waan imaaday marti baan ku ahaasno marti buu ku ahaa يا أصلا سمينار بومات علشان وحو يقصوا طلق لحوس لهي علشان دتكي ما داب أكسو فقاتين إهلكي أكسو فقاتين وحرب تاكو سمي سكرتها دون إسكون نقص سمينار كاكو نقو عد وحكا قاعدة كرتا مالي علشان ساس مو كفكرة I don't know ما شايدان باكتير بديي والله ما قرانا يا وحي يقول دعاي وانو قادن واي وحي يقول نقطي وقادن واي أنا قلنا وحنا هاي هدان ماركتين وحنا هاي دتك خيانة نعب دتك عادي أدب خيانة نعب وحيقول نقطي وقادن واي لما فلانة مسكح ذي كويناتي سيدي بغو سدا كوغو سمين كرا سيدي أو منينك سدا كوغو سمين قرين كرتا منينك سدا كوغو سمين أو بينتا انتا ساسانا كوغو سو شيغي مياد قرين كرتا واد بديمتي هداد قريس واد ديمت haddaad qaris oo haddii matalan barka maal uur kugu soo bax maxaa lagu caay wadankii maxaa dadka la isku caaya wacal bay dhashay waa sharmuuto calashaan haddaad tiraado xitaa waa leh haddaad uur waxaan ku fikiray haddaad inta isla fadhiistay haddaa xitaa uur yar haddaad tiraado waa lay kufsaday yaa kaa aqbalay calashaan markii lagu kufsaday yaa kaa aqbalay maxaa u sheegi weydaa kuu taala mise ilmihii maadaa ilmo dhasho ma tuuraysaa calashaan inaad tuurto kugu qasbanaysaa ama in lagu caayo aniguna aad baan ceebta u nacbaan jiray aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ceebta u nacbaan jiray waxaan ahaan jiray gabar taxardirta intuu bini aadan taxardiro inuu nin sidaa korkayga inuu naaskayga saa u taabto ma ogolaan jirin عشان ويكسر الشكل وكسر كسرنا وصلنا هالكاس وفريسين شري أنا هالكاس فريسين شري أفكا أم بهذا المعاني قدي شري هذا المعاني قدي لكن كركي يكون مسحت قدي شري دار سوي علشان أنا من سنة علشان هذه بانو لعبة علشان أنا مركان يراه يدي حقوق أنا شرتي ما أنت من كركا تابتو أما ويل يرو كركا تابتو ما أنت صعب هذا أيام حتى أدون كلاجا علشان ويل شوكو عينيان حرم أهان كرتد حر واحد تايلاند ديرة واحد تاي marka aan korkaaga la taabanin oo aan jirkaaga la taaban ayaad wiilasha inta day aan iska celin jiro dili jiro iska celin kartaa ashad halka mari kartaa ceeb macalisha waxa ka wan nacbaan jiray inaan ceeb yaro inta in la eega laygu helo aad baan u diidi jiray aad iyo aad bay dhibi jirtay ashaan waxa sidee hatta qariso oo barka maalin saas kugu dhacday yaa ka mayray cid ka maraysa male maxaa say waa imaatay xaafada imaatay adeer haye ninkii way soo kufsaday yaa waa soo kufsaday ninkii uu soo kufsaday ayay ninkii uu soo kufsaday anigu uu soo kufsaday haye marka maxay see ku kufsaday saas waa kana jirkeygii baan tusay nabaradeedii baan tusay dharkeygii oo jeexjeexan baan tusay ilaa marka gurumka ay dharko iska bedelay markii hore kan dharkeygii maxay tahay